القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. قعقاع بن عمرو التميمي magaciisu waa qacqaac ibn camr at-tamimi waxa uu ka yiri xaalkiisa khaliifkii muslimiinta ee Abu Bakr as-Siddiq Allah ka raali noqdee lama jabiyo ciidan oo ku jiro qacqaac sidoo kale waxa uu yiri Abu Bakr Allah ka raali noqdee codka qacqaac oo kaliya waxa uu ciidanka uga qayr badan yahay oo uu uga fiican yahay kunnin waxa uu ku caan baxay geesinimo adkaysi xad dhaaf ah iyo sugnaansho lagu sugnaado goobaha dagaalka iyadoo la qabo geesinimadaas ku adkaanta cadowga Allah waxa uu lahaa aqli fog iyo garasho xeel dheer hagaajinta arrimaha ciidanka iyo maamulidda howlaha dagaalka arrinkaasna waxa daliil ugu filan معاركتي قادسية فراد مسيق فرشدي الحريرة بهرسير مدائن جلولاء iyo xalwaan iyo dhacdooyinka la midka ah waxa la isku khilaafay suxbadiisa sugnaanshaheeda bimacnaa inuu nabiga arkay sallallahu alayhi wasallam iyo in kale balse waxa la isku raacay waxtarkiisii muuqday oo uu ka geystay futuuxaadkii islaamiga ahaa iyo inta badan duulaanadii dhacay waqtigiisa waxa sugay oo sheegay inuu saxaabi ahaa ibn abdulbar kitaabkiisa al-isti'aab ibn hajar al-isaba ibn kathir usdulqaba iyo ibn qani' kitaabkiisa la yiraahdo mu'jamu sahaba waxaana loo cuskadaa inuu saxaabi ahaa laba xadiis oo aan sugnayn sida uu sheegay ibn hajar labadan xadiis waxa ku jira nin daciif ah kaasoo ah Sayf ibn Umar at-Tamimi jasiiradu waa ka carabta waxa deganaa qabaa'ilka bani Tamim taas oo lagu tiriyo qabaa'ilka ugu caansan uguna waaweyn qabaa'ilada Carbeed ee uguna fadliga iyo nasabka wanaagsan gabi ahaan jasiiradaas sanadka loo yaqaan aamul wufuud waxa yimid masjidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee magaalada Madiina al-Munawwara wafdi ka socda reer bani Tamim ayagoo ku dhawaaqaya kuna qaylinaya nabi Muhammadow sallallahu alayhi wasallam annagana soo aad oo soo haleel dhulkeena arrinkaas waxay dhibtay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaana soo degay aayad la akhriyo ilaa qiyaamu saaca إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم qoladii reer bani Tamim waxa uu soo baxay nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas ayay ku yiraahdeen waxaan kuugu nimid inaan kula faantano waxayna gudagaleen inay ku faantamaan khudbado geeraaro iyo gabayo kala duwan waxaana kamid ahaa gabayadii ay tiriyeen maalinkaas نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع إنا كذلك عند الفخر نرتفع markaas ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam amray inuu u jawaabo Hassan ibn Thabit Allah ka raali noqdee إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع markaas kadib ayuu islaamay waxaana islaamay qoomkii waxaana amal marin aad u qiimo badan nabiga sallallahu alayhi wasallam ayadoo qabaa'iladii timid ay qaadanayaan jawaaistii iyo amaalmarinadoodii nabigana sallallahu alayhi wasallam ay la baayactamayaan ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isha waxa uu la raacay wiil kamida markaas ayuu weydiiyay magaciisa kolkaas ayuu ugu jawaabay al-qacqaac ibn amr markaas ayuu ku yiri maxaad u diyaarsatay jihaadka jidka Allah lagu dagaalamayo markaas ayuu ku jawaabay waxaan u diyaariyay daacada Allah iyo tar rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam iyo fardo saafinatul jihaad saddex lugood ku taagan sida ay u diyaarsan yihiin darteed iyo warma wax markaas ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku yiri waa taas mid la doonayo laga bilaabo maalintaas waxa uu dhigay oo uu geeyay una diyaariyay naftiisa iyo seeftiisaba goobaha hardanka oo ka socdo kana oogan yahay al-jihaadu fi sabiilillah waxa lagu yaqaanay qacqaac geesinimo iyo howlkarnimo xitaa ka hor inta uusan islaamin markii uu ka soo faaruqay Khalid ibn Walid Allah ka raali noqdee dagaaladii kululay ee loo yaqaanay xuruubu ridda ayuu Abu Bakr Allah ka raali noqdee waxa uu u soo qoray warqad kuna amray
amray Khalid ibn Walid inuu u jihaysto dhankaas iyo Ciraaq si uu u furto magaalooyinka mandiqadaas ulana dagaalamo kana badbaadiyo ciidamadii Furus ee dabcaabudka ahaa si ay dadka mandiqadaas ku dhaqan ugu dhaqmaan diinta Islaamka waana waxa ugu muhiimsan ee jihaadka loo jideeyay in dadka gaalada ah diinta Islaamka loogu baaqo si ay u soo galaan ama ay jizya bixiyaan kuwa muslimiinta ahna loogu baaqo inay kitaabka Allah isku xukumaan Allahna waxa uu yiri قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون sidoo kale Allah waxa uu yiri وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله balse ciidankii la amray inay u jihaystaan dhankaas iyo Ciraaq waxay ahaayeen kuwa aad u yar sababtuna waa in ciidankii Khalid in badan oo kamid ah ay ku shahaado qaateen dagaaladii kululaah ee lala galay murtadiinta halka kuwa kalena ay fasax qaateen oo ay xaafadahoodii u boqoleen maadaama ay muddo dheer ribaad ku jireen arrinkaas sababkiisa ayuu Khalid ibn Walid waxa uu warqad u qoray Abu Bakr as-Siddiq oo ahaa khaliifkii muslimiinta asaga oo weydiisanaya gurmad ciidan kadib markii warqadii Khalid ay soo gaartay Abu Bakr ayuu Abu Bakr ku yiri dadkii la joogay Khalid waxa uu naga dalbanayaa gurmad waxaana gurmad ahaan ugu daray Al-Qa'qa' ibn Amr at-Tamimi Allah ka raali noqdee raggii Abu Bakr la joogay ayaa wareeray oo aad u yaabay markaas ayay ku yiraahdeen amiirkii muuminiinta ma hogaamiye ciidankii ku yaraaday oo gurmad u baahday ayaad waxaad gurmad ahaan u siinaysaa ama ugu diraysaa hal nin markaas ayuu Abu Bakr ku jawaabay codka Qa'qa' oo kaliya waxa uu ciidanka uga qeyr badan yahay oo uu uga fiican yahay kun nin Khalid ibn Walid waxa uu u dhaqaaqay hawshii loo igmaday ee dhankaas iyo Ciraaq asagoo wata 10,000 halka riwaayadaha qaarna ay tilmaamayaan 18,000 oo askari oo uu kamid yahay Al-Qa'qa' ibn Amr at-Tamimi kuna tilmaamay Abu Bakr inuu u dhigmo amaba ka sareeyo kun nin waxa uu Khalid u jihaystay mandiqada Al-Hafir ee dhacda hadda mandiqada Al-Ha'il ee dhulka Xarameynka kamid ah waxaana xukumayay mandiqadaas Hormuz oo ahaa hogaamiye kamid ah hogaamiyaashii ugu caansanaa boqortooyadii reer Furus waxa uuna ahaa waa Hormuz nin ku tilmaanaa isla weynin asagoo xiran jiray koofi aad u qaali ah sidoo kale waxa uu ku caan baxay islaam nacaybka guud ahaan gaar ahaan kuwa carabta ah ilaa ay carabtu ku mahmaahaan marka ay arkaan ruux shar iyo dhagar badan ka sharnimo badan kana hagar badan Hormuz markii uu gaaray Khalid mandiqadii Al-Hafir ayuu koorihiisii ku furay halkaas markaas ayuu warqad u qoray Hormuz من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس أما بعد فإذا أتاكم كتابي هذا فأسلموا تسلموا أو اعتقدوا منا الذمة وأجيبوا إلى الجزية وإلا والله الذي لا إله إلا هو لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة waa uu wareeray Hormuz oo waxa ka dhumay kontaroolkii markii uu aqriyay warqadii Khalid ibn Walid Allah ka raali noqday oo u soo qoray isla markiiba waxa uu waraaq u qoray Asdashir boqorkii Farisiyiinta ee xilligaas asagoo u sheegayay in muslimiintu soo gaareen mandiqada Al-Hafir ayagoo ku soo jeeda dhanka iyo Ciraaq way diyaar garoobeen Farisiyiintii isla saacadiiba waxayna u soo degdegeen meelihii biyaha lahaa ee mandiqada Al-Hafir waxayna ku soo hormareen goobihii biyaha lahaa inta aysan soo gaarin Khalid ibn Walid iyo ciidankii isla markii ay soo gaartay Khalid qabarkii Hormuz ee ahaa inay qabsadeen oo u soo hormareen goobihii biyaha lahaa ayuu ciidankiisii amray inay dhaqaaqaan waxa uuna ku yiri waxaad ogaateen inay nooga soo hormareen goobihii biyaha lahaa balse waxa goobahaas u haraya labada ciidan midka sabarka badan uguna karaamada wanaagsan waxa la isugu yimid goobtii waxaana saftay labadii ciidan iyadoo mid waliba kan kale ka soo horjeestay hogaamiyihii Farisiyiinta ee Hormuz waxa uu soo istaagay meesha ugu horeysa ciidankiisa asagoo soo maleegay shirqoolkii uu ku dili lahaa Khalid ibn Walid Allah ka raali noqdee gaalkii Hormuz ahaa horaanba waxa uu yaqiiniyay oo qalbiga gashaday inuusan Khalid ku dili karin sidaa darteed waxa uu go'aansaday Hormuz inuu Khalid ku dilo si kada iyo dhagar ah waxa uu ka soo baxay Hormuz afkii asaga oo ku dhawaaqaya isoo qaabil Khalidow isla markii ay Khalid dhagihiisa ku dhacday kelimadii Hormuz ayuu u soo dhaqaaqay dhankii Hormuz balse isla markii waxa Khalid hal mar u soo wada baxay raggii Hormuz oo soo diyaariyay inay Khalid seefta ku boobaan mar qura laakiin waxa arintii dareemay Qa'qa' ibn Amr asagoo safkii muslimiinta ka soo dhaxbooday
seeftiina la dhex qaaday ciidamadii cadowga isagoo inta badanna madaxyada ka guray waxaana uu ku dhawaaqayay cadowgii ilaahayow waxaa idin yimid oo idin soo qaabilay Qacqaac ibn Camrin waxaana Qacqaac ku wehlinayay howlgalkaas fariidka ah Qaalid kaasoo seefta si wacan ula helay hogaamiyihii Furus ee Hurmus isagoo goobta waray isla markiiba waxaa isku dhex yaacay ciidamadii Furus waxaana qulubtooda hareeyay cabsi iyo argagax kadib muslimiintu waxa ay ku qaadeen Farisiyiintii weerar hal mar oo garba siman ah ayagoo ka dhigay dhammaan ciidamadii Farisiyiinta mid la dhigay goobta ama la dhaawacay iyo mid dhuuntay oo isaga cararay goobta dagaalka macrakadaasna waxaa loo yaqaanaa al-Ubulla ama Daatu Salaasil waxa ayna dhacday sanadkii 12aad ee Hijriyada markii ay dhamaatay macrakadii ayuu Qaalid fiiriyay Qacqaac kolkaas ayuu yiri Allah ha barakeeyo Abu Bakar asaga ayaa naga yaqaan ragga asagoo sii raaciyay ciidan oo ku jiro Qacqaac lagama guuleysto maalintaas wixii ka dambeeyay waxa uu Qaalid ibn Waliid jeclaa kuna dadaali jiray inuu had iyo jeer la socdo Qacqaac waxa uuna kala qayb galay macaarig dhowr ah oo ay kamid tahay Yarmuug iyo macaarig kale oo la mid ah dhageyste maxaad ka filan kartaa haday macaariko ku wada kulmaan aqligii iyo geesinimadii Qacqaac iyo Qaalid oo qalbi qura iyo gacan kaliya ku wada midaysan hadaan eegno furashadii magaalada Dimashq taas oo muslimiinta ku adkaatay furashada magaaladaas lagu hareereeyay aswaar aad u dhaadheer laguna wareejiyay dhammaan jihooyinkeeda togag biyo wada si aysan uga soo gudbin cid kasta oo duulaan ah kadib godoomin ay muslimiintu ku hayeen ku dhawaad 7 bilood waxa kamid ahaa ragga loo xil saaray godoominta magaaladaas Qaalid ibn Waliid oo uu wehlinayo al-Qacqaac ibn Camrin Allah ka wada raali noqdee kadib markii uu ogaaday Qaalid qoys ku timid qaar kamida muslimiinta ayagoo dhahaya sidee ayay noogu suuragali kartaa furashada magaalada sidaan u adag iyo goorma ayaan fura doonaa halkan iyo waqtigan ayay timid jawaabtii Qaalid jawaabta Qaalidna had iyo jeer waxa ay tahay ficil ee ma aan hadal oo qura waxa soo gaaray Qaalid ibn Waliid qabar sheegaya in hogaamiyaha magaalada Dimashq ee loo yaqaano Durrumah oo uu dhashay wiil asagoo in muddo ah aan wax caruura dhalin maadaama uu ahaa nin daah waxa uuna aad ugu farxay wiilkaas asagoo dhammaan ilaaladii magaalada u sameeyay casho sharaf ayagoo go'aansaday inay halkaa ku wada qamri cabaan kuna dhaanteeyaan ilaa laga gaaro subaxii waxa ka faa'iideystay arrinkaas Qaalid ibn Waliid asaga oo sameystay jaranjarooyin ka samaysan xarko kuna wehlinayay howlgalkaas geesinimada leh al-Qacqaac ibn Camrin waxa uuna Qaalid ku waxaan kori doonaa suurkii lagu wareejiyay magaalada ee marka aad maqashaan takbiirteena ha soo koraan qayb adinka idin kamida gadaasheena qaybta kalena albaabka ha soo cariiriyaan markaan ka furnana ha soo galaan Qaalid iyo Qacqaac oo ay wehliyaan koox kamida mujaahidiinta ayaa dabaal kaga gudbay dhufeyskii biyaha waday ee magaalada ku hareereysnaa ayaga oo gaaray suurkii weynaa ee magaalada waxayna ku koreen jaranjaradii xarkaha ka sameysnaad kadib waxa ay u jihaysteen dhankii albaabka waxa ayna dileen ilaaladii joogtay kadib waxay fureen albaabkii waxaana soo galay ciidamadii mujaahidiinta oo takbiirsanaya waxayna wada gaartay takbiirtii mujaahidiinta meel kasta oo kamida magaalada inta kadib waxa isdhiibay ilaaladii magaalada waxayna gudagaleen inay u furaan muslimiinta dhammaan albaabadii magaalada isla markii laga faaruqay furashada magaalada Dimashq waxa fariin ka timid amiirkii muuminiinta Umar ibn Khattab fariintaas oo ku socota Abu Ubayda Aamir ibn Jarrah waxa uuna ku yiri waxaad goysaa ciidankaada qayb kamida waxaadna u dirtaa Sa'd ibn Abi Waqas Allah ka raali noqdee oo ku sugan Qaadisiya waliba si degdeg ah hawshaas u fuli Abu Ubayda Aamir ibn Jarrah Allah ka raali noqdee waxa uu ku dhaqaaqay amarkii amiirka waxa uu ciidankii u diray Sa'd ibn Abi Waqas oo amiir uga dhigay Hisham ibn Utbah asagoo muqaddimada ciidankaasna amiir uga dhigay al-Qacqaac ibn Camrin dhammaantood Allah ka wada raali noqdee waxa uuna kula dardaarmay labadoodaba inay degdegaan maxaa yeelay waxa ay wajahayaan walaalahood ku sugan Ciraaq isbahaysi aad u adag oo ay diyaariyeen Farisiyiintu dhab ahaantii waa xashdi aad u weyn marka la barbar dhigo kan muslimiinta sababtoo ah ciidanka muslimiintu waxay ahaayeen 20,000 ilaa 40,000 halka ciidamada Farisiyiintuna ay cagacageynayeen in ka badan 200,000 oo askari kuwaas oo aad u qalabaysan iyo 30 maroodi oo loo soo carbiyay inay ka qayb qaataan dagaalka waxaana hogaaminayay ciidamadii Farisiyiinta Rustum asaga oo saaran kuna dangiiga sariir dahab ah Hisham ibn Utbah iyo Qacqaac ibn Camrin waa ay dhaqaaqeen balse Qacqaac maadaama uu hogaaminayay muqaddimada ciidanka waxa uu la hormaray kunnin ayaga oo joogteenayay socodka
habeen iyo maalinba waxayna gaareen duleedka qaadisiya maalintii dagaal ku bilowday maalintii xigtay waxaana loo yaqaanaa maalinkaas yawmul aqwaad dhab ahaantii waxay jareen masaafo aad u fog ayaga oo ku bixiyay waqti aad u gaaban waxa uu ogaaday qaaqaac in maalintii koobaad ee dagaalka loona yaqaano yawmul armaad ay muslimiinta ku adkaatay inay xakameeyaan awoodda dagaalka cadowgooda oo aad u sarreysay iyo ayaga oo wajahayay makhluuqa ugu awoodda badan koonka aynu saarannahay oo ah maroodiga oo aysan hore u baran sida loo wajaho loolana dagaalamo dhanka kale maroodiga wax saameyn ballaarana kuma yeelanaynin maalintii koobaad durid waran iyo darba seeftoona balse uu ka qaadayo waxaas oo idil maroodigu inuu sii kaco kuna soo ordo safkii muslimiinta waxaa isweydiin mudan sida qaaqaac uga dhigay kunkii askari oo uu watay kumanaan askari marka loo eego indhaha farisiyiinta waxa uu u qaybiyay qaaqaac ciidankiisii boqol iyadoo boqolkiiba mar ay u dhaqaaqayaan goobta dagaalka mana raacayaan boqolkii xigay ilaa ay marqaan boqolkii hore qaaqaac waxa uu hogaaminayay boqolkii ugu horeeyay ee ciidanka asagoo sare u qaadaya takbiirta sidaas ayayna boqolkiiba mar u dhaqaaqayeen isla markiiba waxaa argagaxay farisiyiintii iyaga oo aaminay in gurmad aan dhammaad lahayn uu soo gaarayo muslimiinta isla markiiba waxaa hormaray qaaqaac asaga oo ku qaylinaya yaa ii soo baxaya waxaa u soo baxay mid ka mid ah geesiyaashii furus kaas oo ku qalabaysan hubkiisa asaga oo dhahaya waxaan ahay Bahmaan ibnu Jadawayhi kii idin jabiyay maalintii Jisri iyo ninkii dilay Abu Ubayd ibnu Mas'uud al-Thaqafi iyo raggiisii waxa aad u birbarqay wajiga qaaqaac asaga oo yiri Allah waa argudashadeedii maalintii Jisri kadib qaaqaac seeftiisa ayuu galka kala baxay wuxuuna kula booday galkii asaga oo isla markiiba dhaawacay muslimiintana waxay gudagaleen inay takbiirsadaan waxayna dhahayeen dhamaystir ninka qaaqaacow una argud Abu Ubayd iyo saxaabadiisii kadib ayuu ku celiyay taas oo dhulka dhigtay gaalkii Bahmaan asaga oo ku dabaalanaya dhiigiisa dib uma laaban kama nasuulin qaaqaac halkiisii waxa uuna dhahayay yaa ii soo baxaya ilaa uu mubarasadii uga dilo gaaladii 30 nin kadib waxa uu u dhaqaaqay dhankii ciidankii muslimiinta waxa uuna ku yiri kulankii muslimiinta cadowgiina seefaha la gala oo la dhax qaada maxaa yeelay seefaha ayaa nafta dadka lagu guraa isla markiiba ciidankii muslimiintu waxay ku boodeen cadowgoodii sida libaaxyadu ugu boodaan ugaartooda ayaga oo ku qaylinaya Allah arsigeennii xalay maanta ayuu ahaaday kama aysan qayb gelin farisiyiintu maroodiyaashii dagaalka maxaa yeelay mujaahidiinta ayaa shalay jajabiyay koorihii saarnaa maroodiga arrintaas ayuu ka faa'iideystay qaaqaac asagoo gabi ahaanba bedelay habkii ay u socotay macarikadii waxa uuna ka soo qayb geliyay qaaqaac 10 geel ah oo uu soo daboolay una soo xiray marooyin madmadow ilaa ay noqdaan wax laga boqo waxa uuna amray muslimiinta inay ku weeraraan geelan fardoolayda farisiyiinta isla markii ay arkeen fardihii gaaladu geel iyo maryaha madmadow loo soo xiray waxay gudagaleen inay ka didaan in ka badan intii fardaha muslimiintu ay shalay ka dideen maroodiyaashii dawladda furus ay wateen muhiimadu waxay tahay in maalintaas aysan qorraxdu dhicin ilaa muslimiintu ay ka yaraahdeen Allahu akbar maalin u dhiganta maalin ama maalin loo tuuray oo ay ula jeedaan culayskii shalay muslimiinta soo gaaray maanta ayay aarsadeen waana sida sunnada kowniga ah in haddii muslimiinta wax soo gaaraan laba jibaar iyo wax ka badan ay guulaystaan Allah ayaana quraankiisa ku yiri أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب sidoo kale Allah waxa uu yiri ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
waa la isku habeensaday mugdigii habeennimo ayaa ku dumay goobtii dagaalka ee Qaadisiya ciidankana waxay gudagaleen inay seexdaan goobihii dagaalka ee ay ku sugnaayeen waxaana loo yaqaanaa habeenkaas Laylatul Sawaada balse ha u malaynin inuu seexday Qacqaac ibn Camr sababtoo ah weli ma soo gaarin gurmadkii ay sugayeen muslimiinta oo waday Hishaam ibn Cudbah waxa uu sameeyay Qacqaac gurmad oo ku dhagrayo cadawga asagoo amray kunkiisii inay meel ka yara fog goobta dagaalka tagaan ayagoo markii qoraxdu soo baxdo u soo dhaqaaqaya goobta dagaalka ayagoo boqol ah sidii shalay ay sameeyeen oo kale kolkii waagu bariyay wax yar kadib waxa goobta soo gaaray 100 askari oo takbiirsanaya waxa uu dareemay Qacqaac in ciidanku ka badan yahay 10 kooxood maadaama kun loo qaybiyay 100 sababta keentana waxay ahayd in gurmadkii Hishaam ibn Cudbah uu soo gaaray goobta dagaalka ayaguna waxay sameeyeen isla markiina dhaqan galiyeen qorshihii Qacqaac oo ahaa in goobta dagaalka loo yimaado 100 laakiin maalinka ciidamada soo galeen loona yaqaan Yoomul Camaas waxa la hagaajiyay koorayaashii marodiyaashii Farsiyiinta ragga kaxeynaya marodiyaashaasna ay ku fariisteen maadaama shalay ay baaqdeen kadib markii mujaahidiintu burburiyeen waxay Farsiyiintu soo galiyeen maalintaas marodiyaashii ayagoo ku hareereeyay raggii geesiyaashooda ahaa si aan dib loogu geysan marodiyaasha ama aan looga jijibin koorayaasha labada kooxood oo dagaalka isku wajahaysa markaan aad ayay xamaasad u qabaan maadaama Farsiyiintu dib u soo howlgeliyeen marodiyaashoodii muslimiintana oo gurmad cusub soo gaaray markii fooda la istaray waxa dagaalka ugu ballaaranay ka socday hareerayaasha marodiga waxa uuna saameyn ballaaran ku yeeshay safka muslimiinta balse aad ayay u sabreen mujaahidiintu ayaga oo la dagaalamaya ragga ku hareeraysan marodiyaasha ilaa ay dilaan midba midka ka dambeeya oo ay meesha ka saaraan dhammaan raggaas laakiin markii ay arkeen marodiyaashii inaysan haysan wax ilaalo ah ayay kaceen oo waxay xooga soo saareen dhanka safka muslimiinta waxaad ma moodaa marodiyaashu inay cadawga uga dhignaayeen dhufeysyo dhaqdhaqaaqaya waana fulaynimo lagu yaqaano had iyo jeer gaalada kuwaas oo aan doonaynin inay u dhintaan mabda'ooda taa beddelkeedana waxay raadsadaan meel ay gabaad ka dhigtaan sida taangi taw tarajay iyo wixii la halmaala Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون markaas ayuu Sacad ibn Waqaas wuxuu la tashaday raggiisii waxa laga yeelayo marodiyaashan waxayna soo jeediyeen mujaahidiintu in indhaha laga rido marodiyaasha gacanta dheerna laga gooyo iyo in xoog la saaro hogaamiyaasha marodiga gaar ahaan mid kacad iyo kan booran ama cadhada leh waxa uuna Sacad u diray kii cadda Qacqaac iyo walaalkiis Caasim ibn Camr waxa uuna ku yiri ka kaafiya marodiga cad muslimiinta dhibkiisa oo dila waxa uuna kii kale u diray laba nin oo reer Banu Asad ah waxa dhaqaaqay Qacqaac iyo walaalkiis Caasim ibn Camr waxayna u jeesteen dhankii marodiga cadda mid walibana waxa uu xooga saaray sidii uu indhaha uga ridi lahaa Qacqaac waxa loo xil saaray inuu rido ishii midig halka Caasimna oo dusha u ritay ishii bidix isla markiiba waxay ka soo rideen labadii indhood kadib waxa ku booday Qacqaac marodigii cadda asaga oo ku duraya warankiisa ilaa uu dhulka ku dhaco labadii geesi ee reer Banu Asadna iyaguna waxay ka rideen hal il marodigii sidoo kalena waxay dhaawaceen gacantii marodiga waxayna u jeediyeen dhankii safka Farsiyiinta asaga oo waxyeelo badan gaarsiiyay ilaa uu isku tuuray webiga waxaana daba galay dhammaan marodiyaashii kale waxay meesha ka saareen muslimiintii xaq u dirarka ahaa dhammaan marodiyaashii waxayna yaqiiniyeen mujaahidiintu haday wax yar sabraan in guushu ayaga raaci doonto insha Allah waxa isu soo qaabilay labadii kooxood waxaana dhaxmaray dagaal aad u kulul ilaa habeenkii uu madoobaado midna ka mas'uulin booskiisii dagaalkuna halkiisa ayuu ka sii socday habeenkaas waxa la maqlayaa oo kaliya qalacda seefta iyo quruurucda nafta baxayso waxaana loo yaqaanaa habeenkaas Laylatul Hariir uma suura gelin in habeenkaas laba hogaamiye waa Sacad ibn Abi Waqaas iyo Rustume ay xukumaan dagaalka waxaana xusid mudan in dagaalkaas uu ahaa kii ugu horeeyay ee habeen la isfarasaaro markii uu waagu bariyay la iskuna daalay seefihiina afbeeleen
ayuu Qacqaac ibn Camr yiri kulankii muslimiintu waxa uu nasrigu u sugnaaday saacad kadib cidii dagaalka ku sugnaata adinkuna ahaada cidda sabarka badan kadib ayay weerareen koox oo asagu wato taliskii Furus kadibna muslimiintu way wada weerareen mar qura markuu Qacqaac weerar ka qaaday kadib qorraxdu si fiican uma soo kor noqon maalinkaas waa maalinkii afaraad oo si xiriir ah oo dagaalku u socdo waxaana loo yaqaanaa maalinkan Yawmul Qaadisiyah markii sufuuftii Furus ay dib u goratay ayaa waxa kacay dabayl adag taas oo sariirtii Rustum tuurtay waxayna ku dhacday webiga agtiisa Qacqaac iyo raggii la socdana waxay u dhaqaaqeen dhankii sariirta si ay u soo dilaan Rustumna waxa uu ku dhex dhuuntay meeshii ay baqaluhu joogeen baqal kamida baqaladaas ayuuna hoosta ka galay Allahu akbar Rustumkii ku soo xan jiray sariiraha dahabka ah maanta waxa uu ku dhex dhuumanaya baqalada dhexdooda marka uu maqlay mid kamida muslimiinta oo soo dhex galay baqaladii dhexdooda ayuu webiga isku tuuray kamana harin mujaahidiintu balse way ka daba galeen madaxa ayayna ka jabiyeen waxaana hawsha dusha u ritay oo fuliyay Hilaal ibn Calafah at-Tamimi Allah ka raali noqday kadib ayuu Qacqaac waxa uu istaagay meeshii teendhadu uga dhisnayd Rustum markaas ayuu yiri Allah ayaan ku dhaartay waxa aad disheen Rustum waxay ahayd dilkii Rustum gabagabada macriko badashay sida ay u socotay taariikhdu waxa uuna ahaa Qacqaac ibn Camr ibn Malik geesigii macrikadaas muran la'aan ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا